بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kalimaadkii aan ugu hadlayna nebiga maqaamkiisa sala allahu calayh wasalam ilaahay agtiisa uu ku leeyahay aan la dhaafinin nebinimadiisa aan hoosna loogaga ridin marka garashada nebiga la garto waxay dariiq u tahay asiga in lagu daydo sidaa awgeed baan aan u khasisnay sanadka ramadaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan ugu hadalno xaq uu nagu leeyahay yaana ka badan cafwuhu wa samaaxatuhu baan ka hadlaynaa maanta nebiga cafinta dadka asiga dhibka u geystay uu cafiyo yaan ka hadlaynaa marka cafwiga iyo gufraanka waa laba isku dhadhow waay laakiin gufraan waxaa la yidhahdaa satru dhunuub dembiga oo la asturo oodan arkaynin laguna qabanaynin cafwigana waxa weeyaan maxwuhu wa isaalatuhu asagoo la tirtirooba la zuuliyabo sidaasay culammadu waxay leeyihiin alcafwu ablaqu min algufraan labadaba ilaahay waa isku sifeeyey waana noo imaan doonta marka cafwiga laba qayb u kala baxaa cafwun can maqdira wa cafwun can dacf qofkii waxa weeyaan waa ku dulmiyey si aad ugu aargudatidna ma haysid marka adiga madluum baa tahay ninkaasna daalim waa ilaahay baa qiyaamo kaaga abaalmarinayo adduunyada waxay ku dhisan tahay ba aslan haddii aysan jirin qiyaamo oo hadhowti ninka maxaan ku iraadaa la dulmiyey aan loo soo celinayn xaqiisa cabath bay noqon lahaydba afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan buu ilaah yiri liannahu adduunyadan nin madaxnimo lagu dulmi baa jirto nin awood lagu dulmi baa jirto nin xoolihiisa laga dhacay baa jiro haddii meel qiyaamo oo aan lagu kala baxayn hadday jiri lahayn waxay noqon lahayd weligiisba ninkii madluum ahayna madluumnimo ku dhammaan lahaa ninkii daalim ahayn weligiis daalimnimo ku baaqi ahaan lahaa laakiin meel xaquuq la isku soo celiya ma jiri lahayn marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan nebiga cafigiisa oo ah can maqdira marka midkan kale ma aha inuu bannaan cidle yaallo dee aan waxba laga soo qaadayn ilaahay wuxuu iri wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluhaa faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah aayaddaas hadda labadiiba way sheegtay waxa weeyaan ninkii xumaan kuu geysto oo xumaan ayada la mid ah looga aarguto way bannaan tahay laakiin faman cafaa wa aslaxa ninkii inta iska cafiyo haddana ninkii oo dhibka u geystay asiga haddana hagaajiyo fa ajruhu cala allahi ilaahay baa ajirkiisa yuu dul saaran yahay oo ilaahay baa bixinayo marka cafwigaas oo noocaas ah oo qofkii inuu iska dhaafo wixii asiga maxaan ku iraadaa dhibka loo geystay ilaahay darajo buu ku gaarsiinayaa aan la koobi karin walidaalika qad saxa can الnabiy sala allahu alayh wasalam annahu qaala maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan markaa wuxuu iri addoon ilaahay uma siyaadiyo hadduu wax cafiyo ilaa cizi mooye adoo kari kara xaqaada inaad ka soo ceshatid awooddiisana haysto yaad iska dhaaftay kaas waxaa la yidhahdaa alcafwu can maqdira baa la yidhahdaa qofkii asoo awoodi leh oo iska dhaafay sidaa daraaddeed baa waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay nagu tawjiihiyey waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin waalcaafiina can innaasi sideeba waxa weeyaan noloshan adduunyada ay ku jaan qaadi kartaa oo ummadii qalbi fiican ay ku wada socon kartaa cafigu weeyaan maalin kali anin hadduu kugu tacadiyo oo adigoo awood leh inaad adigana inta kugu aad ku samaysid aad dhaaftid weligiis abaalkaas ku iloobi maayo waxaa ka dhalanaya marka cilaaqa wanaagsan ummadii marka sibay wada jaan qaadi kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bal aan fiirino waxaa hore noogu soo maray ilaahay inuu ku tawjiihiyo u yidhi khudi ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin waxyaalaha nebiga la amray oo inuu fuliya ay tahay baa ay aayaddaas sheegaysaa macnaha cafwiga qaado mabda ahaan u qaado
wanaag inaad fartid daa'imanna mabda ahaan u qaado dadka jaahiliinta oo la yaqaano oo lagu og yahay dadka inay ku xadgudbaanne inaad iskaga dhaaftid mabda ahaan u qaado marka waa mabaadi ilaahay uu jeexay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa kaloo noo soo hormartay dadkii loolanka nebiga lasoo galay ee dhulkiisa ka bixiyey ee inuu dilaan go'aansaday markuu dhulkoodii ugu tagayna madiine ku nabadgeli waaye ee gaale iyo carab iyo yahuud isugu soo aruursaday inay ka takhallusaan maalinkuu ka awood helay ee maka uu furtay waa tii la hor keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku yidhi idhabuu fa antum tulaqaa maalinkaa nebiga waa ka aargudo karay intoodaas oo maanta ku soo taagneed qoorta ha loo dheeray hadduu yidhaahdo cid hadalka soo celi karta ma jirin marka way baryootameen nebigana waa iska dhaaf weligood uma ayna iloobin markii nebiga si dhib loo gaarsiiyey oo maka iyo daa'if labadiba ay diiday inay wax ka aqbasho makana ay yidhaahdeen waad naga baxday daa'ifaad aadee mar kale ha nagu soo noqonin magan uu ku soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam maka min jadiid oo malakul jibaal u yimid waa waqtiga axwaj maa yakuun nebiga in la gargaaro ugu baahnaa owri nebi maxamedow murnii bimaa shi'ta in shi'ta an utbiqa calayhim alakhshabayni facalt qaala الnabiyu sala allahu calayhi wasalam bal arjuu an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay-an wuxuu yidhi iska daay buu yidhi kuwaan fiirsan maaye caruurtooda ilaahay inuu dad caabuday ka soo saarayaa dhici kartay iska daay walidaalika nebiga waxay ka mid ahayd akhlaaqdiisa sala allahu calayhi wasalam naftiisa asiga uma aargudan jirin waxa weeyaan kamaa fi saxiix waxaa layidhi man taqama rasuulullahi linafsihi ilaa ida intuhikat xurumaatullaahi waxa weeyaan in diinta dhib loo geysta mooye asiga naftiisa haddii dhib loo geysta nebiga ma fiiri jirin calayhi salaatu wasalaam walidaalika naagtii xataa sumayso yahuudiyada ahayd ee markii lasoo qabtay ee loo sheegay uu nebiga yidhi hilibkan waa sumaysan yahay ee naagtii la ogaaday ay tiri haddaad nebi tahayna waxba kaama dhibayo haddaad tahay nebi aadan ahayn inaad ummadda aan kaaga raaxayaan doonay nebiga naagtii inuusan wax ku samaynin baa la ogyahay liannahu waa arrin asiga gaar ku ahayd walow noloshiisa suntaas oo mar kastaba ay ku soo kaci jirta uu dareemi jiray calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay baa baray wuxuu ku yidhi facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr intaasoo dhan nebiga mabaadi'a loo siiyey dadkan adiga atbaacdaada oo ku raacsan hadday dhib ka yimaadaan iska cafi dembigoodana u dhaaf washaawirhum fi lamri waxa waa istibdaad ma la ogolo nebi maxamedow waxii lagu soo dejinayo oo aan gafaynin yaa la yiriyay washaawirhum fi lamri saxaabadaada la shawr ee wixii idinla soo gudboonaado ra'yigoodii qaado qofka markii aad la shawrtid oo talada wax ka gelisid waxa weeyaan nin qiimo layuu isku arkaya laakiin qoladan hadda caalamka ka jirto istibdaadiga u badan oo dee diktaatoriyiinta ah ummaddii waxay ka dhigeen aale inay iska noqoto war adiga waxaa qabo wixii la faray haddii ninkan ay xumaadaan asaa loo saarina hadday wanaagsanaadaanna waxaa la leeyahay ninkii madaxda ah ayaa iskale wanaageeda marka waxa weeyaan arrin aad dhibkeeda u leh walidaalika waxaa la yidhaahdaa markii maka la furtay iyadoo kufaaru quraysh oo dhan ay u dhib badnayd laakiin abu sufyaan ibni xarbi baa ugu sii darnay marka waxay ahayd asiga afarta oo ugu waaweyn in madaxa loo dheereeyo markaas nebiga saas intuusan samayn wuxuu yidhi waman dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin aslan nin kastaba gurigiisa gala aamin buu yahay baa la yidhi marka waxawaan macnawiyaadka loo dhisaa meeshuu ka filayey in la yidhaha adiga towba ma lihid waxa weeyaa maanta maxkamadda saraa lagu geynaa in la yidhaha uu filayaa la yidhi adiga dadka waa ka duwan tahay si gooniha loo ixtiraamay marka cafwiga waxa weeyaan waa khuluq aada u qiimo badan ee nabigana calayhi salaatu wasalaam lagu yaqaanay
caaisha weydiiso waxay tiri haddii aan ogaado leylatulqadri inay habeenkan tahay bal waxa ii habboon inaan sameeyo ii sheeg. markaa nebigu wuxuu ku yiri waxaad tidhaahdaa caaishoy allaahuma innaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cannii. meel duca uga habboon oo la ducaysa lahay habeenkaas ma jirto. wamaca daalika ducadaas oo cafwiga ku dul wareegaysanayso keli abaa la amray allaahuma innaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cannii. marka cafwigaas waxa weeyaan haddaad heshid wax ka weyn maba jirtabo. ilaahay wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wayacfuu can asayi'aati wayaclamu ma tafcaluun. ilaahay waxyaalaha uu la gaar noqday bay ka mid tahay. wax towbada kuu dhaafi karoon ilaahay ahayn ma jiro. wax dembiyaalkaada tiri karoon ilaahay ahayn ma jiro. wax adiga waxaad samaynaysa oo kuu gaar ah ogaan karoon ilaahay ahayn ma jirto. marka waxa weeyaan waxyaalaha inaad ilaahay si gaar u caabud keenaya bay ka mid tahay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midka ka fogaado aslan ee waxyaalaha qofka misaajkiisa wax ka bedelayo ama dabeecadiisu. nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu cafiyo iska dhaafay marka hore wuxuu iska ilaalinay in uu calayhi salaatu wasalaam uu ka fogaadaba aslan. walidaalika caaisha waxay warisay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay ka soo gaarto nin dhib inuu u geystay ama wax uu ka sheegay wuxuu dhihi jiray maa baalu aqwaamin yasnacuuna aw yaquuluuna kada wa kada. markaasuu nabiga ka reebi jiray laakiin ma dhihi jirin fulaana saan iga soo gaartay muxuu ula jeedaa ma dhihi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam. walidaalika wuxuu iri laa yuballigunii axadu minkum can axadi min asxaabi shay-an fainii uxibu an akhruja ilaykum wa ana saliimu sadr. sidaa waxa weeyaan waa manhajiya oo aad u qiimo badan. nebigu wuxuu iri axad yuusan axad kale wax iga soo gaarsiinin. haddii aad maqashaan nin saxaabadayda ka mid ah oo wax aniga iga sheegayo ha ii soo gaarsiinina buu iri nabiga calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay aniga waxaan jeclahay inaan idiin soo baxo anoo qalbigayga u fiyow yahay. laakiin haddaad baabul atajasus haddaad furtid waxa weeyaan dhibkii yaroo meel ka dhacaba waa lagula soo ordaa. markaasaa ummaddii oo dhan cuyuubtoodii baa ku wada muuqanayso. cidaad ku kalsoonaanayso marka waa yaraanaysaa. laakiin baabkii buu nebiga iska xiray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu iri cid wax iga soo gaarsiisay haysan jirin. wixii diinta ku saabsan waa goonigeeda iyo ummadda dhibkeeda. laakiin wixii aniga ii gaar ah waxba ha ilay soo gaarsiinin buu iri. leannahu taas waxay ku dhalinaysaa qofkaas inuu qalbiga uu kaaga abuuro jiro. sidaas waa fiican tahay. walidaalika waxa weeyaa ninka markuu mas-uul yahay waxaa wanaagsan inuu shaqaalihiisa dhaqan ugu dhigo inuu midkaan soo jaasuusin. hadhow haddii baabkaas aad furtid ummaddii oo dhan baa kuu soo baxaysa. xaqiiqadeedu waxay tahay aaminkii aa yaraanaya. laakiin haddii baabkaas aad iska xirtid dadkii waxaa ka dhalanaya ama wax la yiraahdo waxa weeye dad si wada jaan qaadi karay noqonayaan. hadhow shaqadii markuu qofka imaanaya soo jecel buu imaanaya. laakiin baabu tajasus cala almuwadafiin haddiid bilowdid wax dhaqma oo dhaqan noqonaya maba jirtaba haba yaraate. sidaa daraaddeed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray sidii hore aan u soo sheegnay nebiga bashaashad iyo farxad iyo soo dhoweyn. xataa qaala jariiru bni cabdillaahi albajali maa xajabanii rasuulullahi qatu mundu aslamtu walaa ra'aanii ilaa tabassama buuri calayhi salaatu wasalaam. yacni markaan soo jariir waxa weeyaan waqtigii ugu dambeeyuu soo islaamay. marka wuxuu iri nebiga maalinna waardi iguma celinin jidka baabkiisa iguma celinin. maa xajabani xijaab waxaa la yihahdaa dadka madaxda ah waxay dhigtaan albaabtooda dad u waardiyey aynu u soo geli karin. marka aniga wuxuu iri weligay layma dhihin joog. nebiga waqtigaa looma geli kara layma dhihin buuri. markaan imaadabo
toos baan ugu tegay kow markaasuu wuxuu iri walaa ra'aani ilaa tabassama markuu arkana waa i qosli jiray jariir waxaa lagu tiriyaa yuusuf haadihi lumma la yidhaahdaa ninka ugu qurax badan dadka ugu qurax badan buu ka mid ahaa marka jariir labadan sifou nebiga ka sheegay wuxuu u malaynayaa asiga in lagu khaas yeeli jiray mana ahaynba nebiga dhaqankiisa bay ahayd oo markii ninkii doona nebigu inuu u yimaado bawaab ma jirin nin oo waardiye ah oo nebiga dadka kala haga ma jirin markuu yimaadana nebiga waxaa lagu yaqiinay cid kastoo qaabishabo inay nebiga calayhi salaatu wasalaam farxad buu ku qaabilay liannahu taas min alkhuluqi alxasan waxaan hore u soo sheegnay ilaahay inuu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim yacni dabeecad fiican oo weyn baad leedahay ayaa ilaahay u yiri marka jariir wuxuu u malayaa labadaa inay gaar asiga u tahay ma ahane dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyay qeyb ka ahayd marka sidaas baa nebiga lagu yaqiina calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa wuu la kaftami jiray waxa weeyaan caruurta wuu la cayaari jiray maxaan ku irahda dumarkiisa iyo gurigiisuu ka shaqaysan jiray wixii khidmo u baahan yahay markuu nebiga kaana fii khidmati ahlihi xataa idaa samica alaadaan kharaja kaannahu laa yacrifuna walaa nacrifuhu waxa nebiga waxa dhan isagama darsaneen way u kala baxsanaayeen marka khulaasatu lqowl maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan nin haddaad aragtid oo wax yar haddii loo geysto weligiis aan iloobaynin dadaa sidaas ah laba kelima haddaad aad isdhaafsataan haddii 10 sano ka soo wareegto sow maalin fulaan sidaas ima dhihin ninkaas ma guulaysanayo waxa weeyaan asigana xiqdi iyo murug iyo hami baa dilay liannahu wuxuu haystaa miraayad tackis asayi'aat bas nin kastaba waxa weeya khaanad buu u sameeyey oo dembigii uu ka galay marka mar kastaba waa xasuusinaya baynamaa cafiga waxaan waaba la tiraa aslan waxaan rabaa daakiradana in laga bixiyo cafiga macnihiis saas weeyaan lama doonayo ninkii haddaad leedahay waa kuu cafiyey oo bacda 10 sanawaat tudakiruhu hada laysa bicafwin abadan bal waxa weeyaan waa gumaysi ninkaas inaad ku dullaysatid baad doonaysaa maalin fulaan waxay u samaysay aan kuu dhaafin mayaadan iga warqabin saasay ka dhigan tahay marka sidaa inay khuluq ku noqoto lama rabo waxaa la yidhahdaa caafimaadka wuxuu ku jiraa aslan qofka atakaaful wax la yidhaahda inaad waxaan iska ilowsiisid inaad is ilowsiisid waa midda labaad oo kasii qiimo badan waxa weeyaan qofkan hadduu ficil iyo hadalkaa soo gaaro waxaa la yidhaahdaa haddii aad u heli kartid 99% uu hadalkaas uu meel xun mooye wax kale isticmaalaynin oo 1% ixtimaali kara inuu wanaag u jeedo wanaagga ku ximbaar qofkan ficilkiisa hadalkiisa sida xun ha u fasirin ee hadday suuragal tahayba in si fiican loo fasiro xaggaa la aad baa lagu leeyahay macnaha waxaa lagaa doonayaa adayna maslaxa ku tahay oo qalbigaada iyo noloshaada caafimaadkeeda ku jira marka cafigu waxa weeyaan waa shay qiimo badan ummadana kugu soo xiray facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum dhaqankaas baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddii uu qalbigooda ku hantay ninka doonaya an yakuuna maxbuuban fi lmujtamac nin mutasaamix inuu ahaado waay nin dadka la xisaabtamayo kullu sagiira wa kabiira meel ma gaaray ummadda marka waxaa la rabaa ninkii nebiga ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam in uu noqdo akhlaaqda nebiga laga sheegayo in lam takunuu mithlan fatashabahu ayaa la yidhi yacni nebiga war aniga dad baa waxay ku leeyihin war nebiga maan gaari karaa aniga bani aadan iska dembi badan baan ahay war nebiga maxaa lagugu soo diray nebiga gaar laguma dhihin oo dee ku dayaa lagu yiri ku daya macnaha waxa weeyaan waxaad isku tacalluqisaa inaad nebiga tiisa maba keeni kartid inaad ku dhowaatid oo waxa uu sameeyey aad isku daydid inaad samaysid taasaa la doonayaa laakiin inaad ka dhigatid naftaada khaladka ay ku dhex jirta mubarir nebiga ma anaga gaari karno dee anaga bani aadan baa nahay waxa weeyaan nafteena yaa waxyaalo badan bay nagu qasbaysaa maya
waxaa la rabaa in naftaada waxay necab tahay lagu qasbo sidii aad ugu dhowaatid nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad doonaysa shafaacadiisa qiyaamada dadka ka galo maxaan ku yidhahdaa fi darajati اluulaa nasal allah subxaanaه wa tacaala التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين